يودا شهداء ماتو صومالي وحكا بحسن على كوان كمقصود لا مروقا قابي هوي معاه موقعو إيجا مايري لا نبتن سوماري هوي معاه intan ka maqnahay waan mahagane manfaciya hurdada wayska maanaace hooyoy macaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa walaashin ayaan nuul oo idinla asxaabta channelka ku xiran soo dhawaada. waa idin soo dhaweynayaa asxaabta cusub oo dhan. waxaan idin leeyahay channelka qofku subscribe u saareen subscribe saara gambaleelkana furta saa u aragtiin waxyaalaha barnaamijyada aan soo geliyo wuxuuna iga caawinayaa insha Allah like badan hala saaro. like waxay caawinaysaa video inuu meelo badan u gaaro commentiyadiina quruxda badan ducadiina kulli way soo gaarto. waa idinkaga mahadcelinayaa. waxaan idin leeyahay maanta maxaa idin wadaa barnaamij waxaan idin wadaa maanta su'aali soo dhiibay waaye ila taliyo kaleetay laakiin insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo dhammaan hooyooyinka Soomaaliyeed oo aniga ma ugu horeeyay ay su'aashan ku socotaa haduu Ilaahay yiraahdo waxayna tahay saani su'aasha saani ku bilaabanaysaa guurka aan ku xireyno lacagta guurka ma inuu qofka xoolo haystaa markii gabar la siinaayo mise waa inaan qofka eegno maaragtay mas'uuliyadiisa kale inuu qofka qof mas'uul qaadi karo uu yahay mise waa inaan ka eegno inuu hanti haysto. taas weeytan meeshaan aan ka hadli rabo insha Allah. waxaan isoo weydiiyay wiilasha Soomaaliyeed kamid ah oo igu yiri barnaamijyadaas oo kale ka hadal gabar loogu diiday hanti la'aan oo reer ka doontay. marka insha Allah hal iyo labo intii maaragtay aan dhihi karo aniga aqligayga maartaasa ku haboon in looga hadlo. horeyna waa uga soo hadlay mar iyo laba iyo saddex ma inta ka hadlo wax badan ka soo hadlay. arintan wayna ugu soo noqotay wax badan maadaama aan maaragtay aniga aan sheegay inaan ka hadlo early marriage ko kale dhalinyarada inaan gubaabiyo inaan ka hadlo hadda koor ka hadlay. marka waxaa la yiri arintan ka soo hadal marka waa ka hadlay doono dadka may daawan miya haddana insha Allah waa dul mareena haduu Ilaahay yiraahdo dhammaan hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan waxaan leeyahay insha Allah awlaad Ilaahay noo xifdiyo dhibaatooyinka maarta wadankeena ka jirna Ilaahay naga dul qaado xanuunadan socdo oo sida hadda coronavirus kan Ilaahay naga dul qaado inta dhimato ku dhimatayna maaragtay iyo inta caado dhimatayna Allah u naxariisto inta xanuunsan Ilaahay noo caafiyo inta xabsiyada ku jirtana Allah ka soo sii daayo inta maaragtay dhalinyarada oo shaydaanku u duufsadan Allah nooga soo celiyo insha Allah. maxaan rabaa marka inaan ka hadlo hadana hooyooyin gabdhaha markii laga soo doonto war gabdhaha yaanan lacag fiirinin dhibaatooyin badan ay imaado markii gabdhaha la guursado dhibaatooyin badan ay dhaco waxaan waa dhalinyaro guurka kadib waxaa dhaco in la isfahmi waayo nolosha inay adkaato xiriir badan inuu imaado. marka muhiimada hala saaro qofka inaa eegtiin dadnimadiisa qofka ina macnaha ma aha qof aan shaqaysanaynin oo meel iska taagan oo waxan tiiba lahayn gabar hala siiyo macnaheega taas waan macnaha waxa waaye qofka inay muhiim ku ahaato number 1 ay ku ahaato muxuu hanti qofkan u haystaa ma ahan waxa muhiim ah inaa eegtid maxaa laatan maxaa maaragtay qofkan uu dadnimo u haystaa maaragtay ninkan nin shaqaysta ma yahay nin akhlaaq lama yahay nin diin lama yahay nin gabadhan mas'uuliyadeeda qaadi kara ma yahay. marka waa taas in la eego in laga fiiriyo qofka qabyaaladna in lagu riixo qabiil in lagu riixo hadda koor waxay soo martay tu qabiil ah qabiil qofka in lagu riixo waa arin xun. xoolo iyo hanti waaweyn qofka in lagu xiro aroosyo noocaas inuu dhigo kale guri noocaas inuu dhigo kalena maarta aniga way ila qaldan tahay maadaama aan qurbo joogno waliba dadka aan la hadlaayo waa dadka qurbo joogta ah oo aniga ma ugu horeeyo ma aha inaan hooyooyinka ka aqli badana ma aha inaan maarta ka fariidsana laakiin hooyo walbo arinta aan ka hadlaayo way wanaagsan tahay inay maarta wixii fikrada ka soo dhiibato hooyooyinka dhan arintan waa u soo bandhigaya ku channelkeega ku xiran haday tahay iyo maaragtay kuwa kale haday tahay qof kasto fikradu ka soo dhiiban kara. waxaana wanaagsan hooyooyin hadana inaan isku imaano fikrada kala qaadano wax isweydaarsano sababta ay tahay wiilasha gabdhaha doonaayo maaragtay waa iyana gabdho un baa dhalay anagoo kala gabdhaha la doonayana gabdho un baa dhalay dumar hadana wiilasha wax loo doonayana anaga dhalnay gabdhaha la doonayana anaga dhalnay. marka waxa way maxaa noo xal
aan guurka ku fudaydin karnaa maxaa anaga noo xalaa aan guurka ku fudaydin karnaa waa qasab maxaa la waana wax dan meesha ku jirto inaan guurka fudaydino diinta islaamkana way noo faray way na faraysaa laakiin ma ahan macnaha qof aan shilin haysan intuu reer iska imaado gabar reer dhaleen oo wax la soo baro lagu soo dhintay in la dhoo iska kaxayso gabadhan iska wado iska guurso ama gabadhii iyo hanti iskugu daraayo dhibaatooyin badan markaas imaan karo taas kama hadlaayo macnaha waxay tahay wiilkan mas'uul muu noqon karaa gabadha mas'uul ma ka noqon karaa nin shaqaystana ma yahay nin diini akhlaaq lana ma yahay qabiilna in lagu xiro qalad aan u arkaa degree in lagu xirana qalad aan u arkaa lacag in lagu xirana qalad aan u arkaa taas waxaa waaye labada qof inay isjecel yihiin wiilkan inuu diini akhlaaq leeyahay ayaa muhiim ah jacaylkana lacag ma galo jacaylka gorgortan ma galo labada qof markay isjeclaadaan jacaylkooda ka weyn wax walbo lacagtan ay idinka waalidaatiin aa ku xiraysiin labadan qof jacaylkooda ka weyn haddii aa wiilkan ku xiraysiin maaragtay maxaa soo baratay jaamacadee soo dhigatay oo kalena jacaylkooda ka weyn marka mar walba muhiim ha noo ahaado wiilkan muxuu diin uu leeyahay muxuu akhlaaq uu leeyahay nin karti loo shaqaysanayo miya ma shaqaystaa taas ha noo ahaato muhiim yaysan noo ahaanin qolo muu yahay muhiim iyo lambar 1 yay noo ahaanin muxuu hanti u haystaa gabadha muxuu aroos u dhigi karaa arooskan weyn oo buuqa iyo maaragtay lacagaha qarashka badan oo tirada ka badan la gelinayo waa ogay caruurta qaar ma yeelayaan ayaga ayaa doortaan maaragtay in lacaga fara badan ku baxo arooskooda qarash badan maaragtay uu galo ayaga doortaan caruurta laakiin maxaa loo baahan yahay caruurta in anaga la hadalno lacagta waxyaalo badan oo kala lagu sameyn karaa haddii iyaga loo sheegan la fahamsiiyana ay fahmi karaan ayaga u baahan waxyaalo badan ay ku gadan karaan gaari ay ku gadan karaan maaragtay cimro kale ku aadi karaan waxyaalo kale badan ay ku sameysan karaan wallahi sida runta hanti badan oo kale ku sameysan karaan habeenkaas arooska lacagta meeshaas ku baxdo hanti badan ayay u noqon kartaa shaqo business ay ku bilaabi karaan caruurta meelo badan in laga fiiriyo waa waxaa laga yaabaa hataa wiilka wax lacag soo haysanin gabadhana aysan wax lacag haysanin labada reerba maaragtay qarash badan galaan hool weyn la kareeyo qarash badan naga baxo laakiin ma ku fikirnay inaan lacagtaas meesha aan ku bixinayno caruurta intaan iskugu duceyno ayaga hadday soo jeclaadeen maaragtay aan hantina ay ka dhigtaan lacagtooda inta la siiyo business ay ku sameyn karaan gaari qurux badan ay ku iibsan karaan meelo badan oo kheyr ay maaragtay ku baxsan karaan masaajiday ku darsan karaan caruur agoon ay wax ugu qaban karaan wallaahi wax badan ay qabsan karaan kambaniyaal ay ku darsan karaan waxyaalo badan ay ku sameysan karaan laakiin waxaa arkaysaa wiil iyo gabar arooskooda maaragtay intaasoo lacag ku baxday qarash badan ku baxay haddana bil kadib wiilkii iyo gabadhii ay ka gaajaysan yihiin ee waxba aysa ka haysan ay ka dhibaataysan yihiin taasna waxaa waa arrin fool xun oo maaragtay caado aan ka dhigan inaan iska dayno waayo qarashka badan oo arooska aan ku bixinayn ilmaha iyaga ayaa u baahan marka tan oo jacaylka lacagta lagu xiraayo aniga ayaa luul ee su-aashaas uu iweydiiyey ma ku xiri lahayd gabadhaada ninka guursanaya hanti ama yuu u dhashay hadday imaato soomaali wax ka baxsan calaf horta waa meeshiisa oo qof walbo maalintuu xab iyo biyaha qofkii loo qoray oo gabar kasta wiilkay ku hoos qoranta way guursanayaan oo anaga waxaa may iyo haa dhahan wax soconaya maaha oo tii allah ayaa socoto laakiin aniga rabitaankayga hadday noqoto wixii soomaali ka baxsan maya laakiin soomaali qolo ay doonta ha noqoto ma kala dooranayo naadami waxaa shida raalahaada marka soomaali ani iima kala loo meesha doona ha degaan qoladay doona ha noqdaan soomaali waa soomaali wiilka soomaaligana waa wiilkayga waan isku kay mid qoladay doonaan baha ahaadaan waa siin lahaa gabar hantina walaahi bilaa kuma xujeeyeen ee waxaan ku xujeyn lahaa muxuu diin uu leeyahay iyo muxuu akhlaaq uu leeyahay iyo kartidiis ayaan fiirin lahaa marka waxaan leeyahay soo dhawaada idinkana maxaa igu darsan lahaydeen hooyooyinka Soomaaliyeed aan nahay maxaa dan noo ah waa inaan ka fikirno
walaalayaal waa aragteen qurbahan aan joogno dhibaatooyinka way bateen caruurta dhalinyarada ku halaabay aad u bateen ma aragtay xaaraanti way badatay see ilmaha ku soo gareysan karnaa see ilmaha ma aragtay wax wanaag ugu sheegi karnaa see ilmaha aan ugu fudaydin karnaa jidka kaliya ee guurka aan ku badin karno waxa xaaraanta iyo wax saqajaankan aan ku yareyn karno aniga mar walba hadii laga shaqeeyo in guurka la badiyo oo guurkana la qafiifiyo waxay nagu xiran tahay gabadha wiilka dhashay iyo aniga gabadha dhalay ay nagu xiran tahay ilmaheen saa iskugu soo dhaweyn lahayn saa anaga ma aragtay aqalash yar guurkeen oga dhigi lahayn si aan anaga inaan dad habi ka dhigno aan ugu fakarna sidee aan anaga ajarna ku heli karnaa laba hooyadaanahay ilmaheenana ay ma aragtay wanaag ay ku heli karaan guri wanaagsan ay ku heli karaan ilmaha ay ku daydaan oo role model u noqdaan say ku noqon karaan inaan ka fikirna waaye mar walbana aniga ayaan fikrad ahaan marka maskaxdeyda iyo aqligeyga ka shaqeysiyay waxa ila qurux badan inaan badino guurka ilmaha inaan mar walba u sheegno inay soo dadijiyaan guurka inay guurka badiyaan insha Allah guurka barakay khayr badan ku jirto videoyaal badan oo hore uga soo hadlay buu u yar dhow yahay insha Allah haysniin ayaan hore uga soo hadashay haddana way ka hadashay arintan waa arin igu soo noqnoqotay waa su'aal li weydiiyay waxaan rajaynayaa wiilka asagana inuu ka heli doono saa u soo sharaxay hooyooyinka Soomaaliyeed oo ayaan luul ugu horeysana waxaan leeyahay hadaan nahay walibo gabdhaha dhalay aan wiilasha u fudaydino insha Allah si aan anagana ajar u helno guri qurux badan oo degan oo xasiloon na ay u helaan caruurteena haduu Ilaahay yiraahdo waa walaashin ayaan luul oo mar labaad iyo mar saddexaad bidnillah ku soo dhawaada channelka ayaan luul barnaamijkan noo sii share gareeya dadka igu cusubna waxaan leeyahay ha ka iloobina inaa like-ta iyo comment-iga iyo share-ta ku qabatiin hadday subscribe idin ahayn subscribe ka saara gambaleelkana furta waana mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuwarkawan ka maqsuudi la murugadan qabe hooyoy macaan muuqaagu iga maydhila dhibtan soo mare hooyoy macaan intan ka maqnahay waan mahagane manfaciya hurdada wayska maanaace hooyoy macaan